markale isku soo noqod wanaagsan sheekada filimkeena maanta waxay dhacday sanadii 1846 waxaan aragnaa markab ganacsi kaasoo ka soo baxay Scotland una socda America sidii uu markabkii u socday ayaa waxa ka lumiyay jidkii maxaa yeelay waxa jirtay ciryaamo iyo dabeel saad u daran markabkiina waa uu burburay isagoo ugu dambeyntii gadoomay waxayna dadkii inta badan ku dhinteen badda iyadoo ay ka badbaadeen dad yar 3 qof oo kaliya ayaa ka badbaaday kuwaasoo lagu kala magacaabo Oliver Gozeri iyo Jim Buckley iyo Paris waxayna ku badbaadeen doon alwaaxa oo ay wateen iyagoo dadkii la socdeen ay baabeen waxayna wateen qariirad laakiin qariirada ay wateen ma aysan mid la fahmi karo sababtoo ah goobta ay joogaan waa gunta dhexe ee badda dhibaato badan ay ku sugan yihiin maadaama markabkii ay wateen uu qallimay waxayna ku fikireen inay naftooda badbaadiyaan waxayna ku qasban yihiin inay halkaan ka badbaadaan waxay ka bacday ciriyaamadii way yaraatay jawgana waa uu dagay kadib waxay firfiriyeen hareerahooda ilaa ay ka arkeen jasiirad u dhow iyaga waxayna jasiiradaasi ahayd mid aanan iyaga u dheerayn isla markiiba waxay yimaadeen jasiiradda iyagoo markaas yimid xeebta waxayna fadhiisteen halkaasi si ay xoogaa u nastaan ma jeclina filimka ka dhaxgalo balse haddii aad weli muuqaalka iska daawanayso oo noo laagarey si uu muuqaalkan u gaaro saaxiibo qurux badan sida adiga oo kale haddii aad nagu cusubtaan nagu soo biir su'aasheena maanta aktarkaana waa mid si weyn ugu soo muuqday masraxyada Bollywoodka haddaba haddii aad garanaysid magaciisa rasmiga ah nagu wada qaybta hoose ee faallada ka soo gudub meesha ay hadda yimaadeen waxaa ka jirtay aamusnaan iyo nabad waxayna u maleynayaan inaysan jirin cid aanan iyaga ahayn oo jasiiradani ku nool maxaa yeelay jasiiradani waxay ahayd mid cidlo ah wax yar kadib oday la oran jiray Bengal ayaa meeshii ugu yimid isagoo markaasi ka nixiyay odaygan ayaa runtii ka mid ah dadka degan jasiiradan saddexdii ninba gurigiisa ayuu si wanaagsan ugu soo dhaweeyay markii uu gurigiisa keenay ayaa wax uu siinaya cunto ay cunaan Gozeli waxa uu bilaabay inuu sheego sheekadiisii iyo sida ay halkaan ku yimaadeen waxa uu u sheegay inay markab wateen markabkii ay wateen uu shir galay oo una gadoomay waxaana u sheegay meesha uu markabkooda ku gadoomay inaysan dheereen oo ay dhowdahay waxaana ku fikirayaan inay markabkaasi dadka laga badbaadeen marka iyaga laga reebo waxayna odayga ka codsadeen inuu halkaan dab ku shido kuwa badbaadayna way imaan karaan iyagoo markaas soo raacaya dabka odayga ayaa ugu jawaabay iska nasta dab aad ku kuleelisan ayaa idin shidaya laakiin Gozeli ayaa si xun ugu dhaawacmay garabka korkiisa shilkii ay la kulmeen awgiisa odayga wax u soo jeedinaya inay jasiiradani sii joogaan dhowr maalmood ilaa ay si fiican ugu soo kabanayaan sidaas daraadeed waa uu soo waday isagoo keenay guri nin la oran jiray Dr. Douglas si iyaga halkaan looga daaweeyo laakiin waxaa jirtay arrin la yaab leh maadaama jasiiradan ay leedahay mid ballaaran oo leh 40 guri waxa kale oo aan caadi ahayn ay ahayd inay jiraan 4 qof oo kaliya oo jasiiradani ku nool kuwaas oo ay ku jiraan odaygani Bengal iyo gabadhiisa Carrigan iyo Dr. Douglas iyo abtigiisa muuqaalka jasiiradani waxa waa mid aad u qalafsan sidaas daraadeed asxaabta halkaan timid dhamaantood waxay weydiinayaan wax ku saabsan jasiiradda Dr. Douglas ayaa markaas u sheegay sababta ka dambeysay in jasiiradani sidaan noqoto isagoo u sheegay in jasiiraddan ay noqotay mid aan wax soo saar lahayn waqti ka hor oo ma aysan ahayn mid ku habboon in la dago sidaas awgeed dhammaan dadkii deganaa waa ay ka baxeen jasiiradan waxaa xusid mudan intaan halkaan jasiiradani ku nool inaan ku joogno rabitaankeena oo kaliya waxaana doonaynaa inaan joogno mana doonin inaan halkaan ka baxno kadibna Buckley habeenkii waxa uu maqlay qaylo aan caadi ahayn isagoo markaas ka maqlay dhanka jasiiradda waxaana markaana bilaabay inuu markaana naftiisa shakiyo waxaana u maleynaa in doctorkan iyo dadka halkaan la joogaba ay markaas qaranayaan wax qaldan waxaana jiri kara wax kale oo markaas ay qaranayaan sababtoo ah dhamaantood waxay la kulmeen dabeecad aan caadi ahayn qof kasta oo halkaan yimid gaar ahaan waxay la yaabiyeen habdhaqanka hablaha waxayna rabeen inay markaas ogaadaan xaqiiqda sidaas daraadeed waxay go'aansadeen inay markaas soo booqdaan jasiiradda si ay markaas u soo cadeeyaan runta waxa ay tahay laakiin ninkii Dr. Douglas ayaa markaas ka mamnuucay inay markaas booqdaan jasiiradda maxaa yeelay waxa laga yaabaa inay kala kulmaan khatar badan sababtoo ah waqti dhow waxa jasiiradda ku baahi doona gudcurka habeenka waxay ku fikirayaan ama wax jira isagoo markaas ku dhahay naftiina been ha u sheegina waxa uu ku yiri waxa niin roon inaad halkaan sii joogtaan laakiin ayaga waxay jeclaayeen inay markaan runta ka salgaaraan waa ayna soo baxeen iyagoo markaas ugu dambeeyay jasiiradda yimid waxayna markaas ogaadeen inay markaan guryaha oo dhan maran yihiin oo aysan joogin wax dad iyo wax xayawaan wayna soo dhaqaajeen si ay markaas u soo wareegaan jasiiraddii dhabaantii jasiiradana waxay ahayd jasiirad dhimatay oo ma aysan jirin dad iyo xayawaan iyo midna wax ku nool ninkii Buckley ayaa markaan halkaan ka shakinaya maxaa yeelay doorka lagama waayo xayawaanada maxay ku dhacday in halkaan laga waayo xayawaanada arrinta dadka ka yaabinaysa ayaa ahayd in aan jasiiradani laga helin wax qariirada xitaa waxay ahayd agagaarka dhulka laakiin kuma aysan jirin qariirada Paris iyo Buckley waxay markaa raadinayaan macluumaad ku saabsan jasiiradda markaa ninkii Buckley waxa markaas ku soo laabanaya goobtii ay ka tageen laakiin ninkii Paris ma uusan soo laabanin sababtoo arigiisa ayaa daciif ahaa markaana waa kana Paris isagoo markaas dhex wareegaya keynta waxaana markaas ku lumay keyntii isagoo markaas ay ka murqactay gacanta waxaana markaana bilaabay inuu markaana meel kasta ku dhaco
waxaana markaana dareemayna inuu markaana qof agaarkiisa joogo maxaa yeelay waqti xadirkaasi waxa uu Baaris maqlayo codad aad u qalabsan aad ayuu ugu nahay codadkaasi wuxuuna u yeeray asxaabtiisa si ay u caawiyaan laakiin ma jirto cid isaga maqlaysa markaana aad buu u cabsaday wax uuna bilaabay inuu markaana soo cararo waxaana markaana dareemayna inuu markaana qof gadaashiisa taagan yahay waxuuna markaana bilaabay inuu saad u cararo maxaa yeelay nafta orod ay aamintay markaana waa kana Bagley isagoo markaas asxaabtiisa u sheegay inuu markaana soo laabanin saaxiibkiisa Baaris waxaana markaana go'aansadeen inay markaana soo raadiyaan saaxiibkiisa laakiin waqtiga ay hadda joogaan waa waqti uu mugdiga saad u daran yahay mana haboon inay banaanka aadaan laakiin Dr. Douglas ayaa halkaas ugu yimid isagoo markaas ka codsaday inaysan dibadda u bixin wuxuuna ku yiri waxa idin fiican inaad guriga ku jirtaan sababtoo ah keentaani ammaan maahan in habeenkii la galo wuxuuna asxaabta markaas u sheegay inay bari baari doonaan markii uu waaga bariyo laakiin waqti xadirkaasi waxay dhammaantood u cabsanayeen saaxiibkooda Baaris maxaa yeelay waxaa laga yaabay inuu dhibaato la kulmay markaana waxaa la gaaray subaxdii dambe waxayna markaana bilaabeen inay saaxiibkooda raadiyaan kadibna waxaa dhacay wixii ay ka cabsanayeen waxayna markaas heleen meydkii Baaris waxayna markaas la yaabihiin sababta uu markaas saaxiibkooda ku dhintay waxayna iyaga ula muuqatay markaana saaxiibkooda laga soo tuuray meel sare kadibna shakigii Bagley iyo Gosling ayaa markaan xaqiiqoobaya iyagoo markaas u maleynaya inay wax qaldan yihiin waxayna markaan u maleynayaan inay markaan jasiiradan ay tahay mid dadka lagu dhibaateeyo waxayna shaki ka qabaan dhammaan afartii qof ee deganaa jasiiradan gaar ahaan haweenka sababtoo ah waxay ogaan karaan dhaqankooda isbedelaya isla markiiba dumarkaani waxaa markaas isbedelaya wejigooda iyo midabkooda iyo indhahooda way isbedelayaan waxayna markaas u dhaqmayaan si aanan caadi ahayn maadaama iyaga la sixray naagta markaas haweenkan ugu yaabka badan dhexdooda waxay ahayd Carrigan waxayna ahayd mid aad u liyaab badan taasoo geysata falalka xun waxayna markaas ka taqalusi jirtay dadka waxayna sii wadaa inay habeenkii Kate dhex mashaxdo iyadoo markaas fulinaysa caadooyinkeeda xun oo markii Baaris la waayay dumarkan isbedelay ayaa dhexda ugu dhacay iyagoo markaas si xun u dilay waxayna markaas calaamad u ahayd sidii markaas ay u sixreen Baaris iyadoo ay taasi jirto asxaabtii way badbaadin waayeen saaxiibkooda iyo noloshiisa waxayna reen Baaris oo meeda markaan waxay ogaadeen marwo saddexaad marka laga reebo labada gabdhood laakiin inta jasiiradan joogeen ma aysan arkin gabadhaasi sababtoo ah inta ay badda ku jireen waxay markaas arkeen buuraha oo markaas iftiimaya waana markii ay helayeen jasiirada sida ugu sheegay jasiiradani maadaama aysan ku aalin qariirad kasta markaana Gosling saaxiibkiisa waxay markaan ku soo laabteen guriga waxaana markaan saadaalinaya waxa kaana ka dhacaya isagoo markaas maskaxdiisa ku haya haddii dumarkaan ay meel cid ku arkaan inay markaas ku casuuqayaan markaan labadii saaxiibo waa ay soo iyagoo markaas arkay dadkii markaas saarnaa markabka oo ka soo badbaadiyay oo meeyda wayna soo baxeen iyagoo markaan go'aansaday inay markaan halkaan ka baxsadaan maxaa yeelay waxaa jiray mugdi saayida iyagoo markaas doonayay inay halkaan ka baxsadaan laakiin arrinta liyaab kale ayaa ahayd doontooda ma aysan ka fogeen waxayna go'aansadeen mugdiga habeenkii inay jasiiradan ugu baxsadaan iyagoo markaas qaadanay boorsooyinkooda markaana waxaa soo wajahday cabsi aanan caadi ahayn iyagoo markaas maqlaya codad kala duwan markii ay maqleen codkaasi waxay markaas garteen in markaas iyaga lala socdo waxayna bilaabeen inay aad u baqaan iyagoo markaas dalbanaya in la caawiyo mana jirto cid caawinaysa mana awoodaan inay markaas ilaaliyaan xasiloonidooda maskaxdooda markaana waxaa madaxa ka galaya codadkii iyagoo markaas ku sigtay inay markaas biyaha ku boodaan laakiin odayga Bingle ayaa markiiba halkaas yimid wuxuuna ka codsaday inay markaas soo noqdaan waxaana halkaas ka carreeyay islaantii markaas doonaysa inay disho odaygii markaana wuxuu ka codsanaya inay soo noqdaan markii ay guriga ku soo laabteen wuxuu sharaxaya odaygii inay halkaan si xun ugu xayan yihiin halkaan ka baxsan karaan si kastoo ay ugu dadaalaan inay halkaan ka baxsadaan wuxuuna ku yiri haddii aad rabtaan inaad noolaataan waarad aniga raacdaan haddii kale oo aad raaci waaysan waxaad u kulmi doontaan xaaladda aad hadda la kulanteen haddaba wuxuu daha ka qaadiyaa runta jasiiradani wuxuuna odaygii u soo bandhigay xaqiiqda sababta ay waxaan oo dhan u dhacayaan wuxuuna bilaabay inuu sheekadii ugu sheekeeyo dhowr sano ka hor waxaan la kulannay gabar timacad taasoo joogtay jasiiradani waxayna waqtigaasi ku nooleed jasiiradan waxayna ka dhigan tahay in dhammaan dadka ay ku noolaayeen nolol farxad leh gabadhan timacad waxaa lagu magacaabi jiray Perseus iyadana waxay deganeed halkan waxayna ahayd mid aad ugu faraxsan oo jecel dabeecadda dadka jasiiradan ku noolaayeen waxay jeclaayeen iyada sababtoo ah dabeecaddeeda ayaa aad u wanaagsaneed waxayna markaas ahayd mid la aamini karo laakiin xaqiiqda gabadhaasi way ka duwaneed midaasi iyadoo markaas ahayd shaydaan markii iyada ay jasiiradaasi imaatay waxay jasiiradii heshay barwaaqo aan caadi ahayn beerihii jasiiradan ku yaalana way barwaaqoobeen xaaladan waxay noqotay mid barwaaqo ah waxaana la sheegaa in sheekadan ay ku salaysan tahay juqraafiga Giriiga balse maalin ayaa nin sakraasan ayaa wuxuu isku dayay si xun ula dhaqmo gabadhii Perseus laakiin ugu dambeyntii ninka sakraasanaa wax ugu dambeyntii ka taqalusay gabadhii Perseus isagoo markaas halkaas ugu dhameynaya kadibna dhammaan dadkii waxay bilaabeen inay markaas baaba'aan markaas yaraatay markaas la imaado jasiiradan
maxaa yeelay markabkiina markii uu doonayo inuu soo gal jasiiradani isagana halkaas ayaa lagu joojiyay isagoo markaas la gediyay jasiiradana waxay noqotay mid aanan caadi ahayn taas oo aan la soo galaynin oona laga bixinin idinkana waa sidii aad u timaadeen macquulna ma inaad halkaani ka baxdaan odaygii markii uu kashifay xaqiiqda dhabta ee jasiiradda asxaabtii waxay bilaabeen inay markaani cabsadaan iyagoo markaasi qaylinaya diyaarno maaha inay halkaani sii joogaan markaan odaygii waxa uu ka caawinayaa in markaas labadii nin ay halkaani ka baxsadaan wuxuuna markaasi xirayaa dumarkii si ay markaas uga fogaadaan sixirkooda laakiin Gosling waa la sixiray maxaa yeelay waxaa saameeyay sixirkii sidaas daraadeed waa uu dhintay isagoo markaasi biyaha ku soo dhacay dumarkii jasiiradani joogay oo dadkii baabinay aad ay ugu xumaadeen raggaani ka baxsaday wayna isdileen iyagoo markaasi buurta iska tuuray halka sidoo kale gabadhii Beersaasna ay markaasi daciiftay iyadoo markaas uu ka duulay sixirkii qofna ma ogaan karta sirta markaasi ka dambeysay inay gabdhahani dadka baabiyaan markaana waxaan aragnaa Gosling doontii u waday taasoo dhaxeebaabaysa badda markaana jasiiradana waxay ahaan doontaa mid qarsoodi ah waxaan halkaas ku dhamaanay filimkii maanta muuqaalkan intaas ayuu ku egyahay intaan muuqaalkan mid ka xiiso badan kulmi doono sidaas iyo nabadiino